السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي أدبان دين سلامين نمد البض نقد داونيسان دوليدا دعلديدا channel ka daawanaysaan waa channelkii Mr Mire anigu Cabdullaahi Cali ayaa idin la socodsiinaya maanta waxaan rabaa inaan idin tuso quick video oo ku saabsan wadadan expressway ee Nairobi waa wado ku noqotay game changer regionkan East Africa iyo dalka Kenya walibana magaalada caasimadda ee Nairobi waa aad bay u bishay bilicda magaalada wax badan bay fududeysay xaafado badan oo awal saacado badan lagu bixin jiray fududeysay marka bal videoga yarka ila daawada jidkani weyn ee Nairobi Expressway waa wado 27 kilomitir ah ama 17 mayl oo lacag lagu maro marka la isticmaalayo kuna taala Kenya taasoo isku xirta garoonka caalamiga ah ee Jomo Kenyatta iyo Aga Westlands ee magaalada Nairobi taasoo lagu dhisay iskaashi dadweyne iyo kuwa gaar ah oo u dhaxeeya dawladda Kenya iyo China Road and Bridge Corporation. wadadani oo dhererkeedu yahay 27.1 kilomitir waxay ka bilaabataa Mlolongo iyada oo sii maraysa Jomo Kenyatta International Airport bartamahana ka marta caasimadda Nairobi ilaa isgoyska James Gishuru ee ku teedsan wadada weyn ee Waiyaki Way. laga soo bilaabo Mlolongo wadadu waxay isku xirtaa isgoysyada garoonka Wilson ee wadada dhanka South isgoyska Likoni ee ku leexda dhankaas iyo xaafadda Islii ee Soomaalida degto ilaa garoonka caalamiga ee Jomo Kenyatta International Airport oo ku teedsan wadada Nairobi Mombasa. laga soo bilaabo isgoyska Likoni wadada weyn waxay sii socotaa dhanka waqooyi ilaa isgoyska James Gishuru masaafo dhan 13.5 kilomitir. jidkani weyn ee Nairobi Expressway waxaa looga gol leeyahay in lagu fududeeyo isu socodka dadka si aan kala go' lahayn loo galo garoonka caalamiga ee Jomo Kenyatta iyo nawaahigiisa. shaqadu waxa ay ku lug leedahay ballaadhinta wadadii hore oo haatan laga dhigay 4 lane oo labada dhinac ka socda. sidoo kale waxaa la casriyeeyay marinada biyaha, buundooyinka iyo nalalka wadooyinkaba. haddaynu eegno dhanka maalgashiga wadadani dawladda Kenya ayaa qandaraas kula gashay shirkadda China Road and Bridge Corporation oo magaceeda marka la soo gaabiyo loo yaqaan CRBC si ay u dhisto wadadan lacagta lagu mari oo ku salaysan iskaashi dadweyne iyo kuwa gaar loo leeyahay. shirkaddani China Road and Bridge Corporation waxay u isticmaali doontaa lacagtooda inay ku dhisto ballaadhinta wadada isweydaarsiga iyo istaanada lacagaha oo Afgiriisiga loogu yeero toll gate. waxay qaadi doonaan khidmadaha canshuuraha ilaa maalgelintooda laga soo ceshado. dabadeed wadadu waxay ku noqonaysaa dawladda Kenya markaasna iyada gacanta maamuli doonta oo gacan ku haynteeda yeelan doonta dawladda Kenya waaye. banka adduunka ayaa damac ka galay dhisida wadadan laakiin umaysan suura gelin. cadadda qarashka ku baxaya wadadani weyn waxaa lagu sheegay inta u dhaxaysa 51 ilaa 65 bilyan ee shilinka Kenya ama 510 ilaa 650 milyan dollarka carigaas Mareykanka. bishii April 2022 ayaa dhismaha jidkani weyn dhamaaday waxaana isla bishaas April loo furay isticmaalka dadweynaha si ku meel gaar ah iyadoo la filayo in lagu dhimo waqtiga safarka garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta International Airport ilaa xarunta ganacsiga ee Nairobi CBD ee magaalada Nairobi 15 ilaa 20 daqiiqo muddo dhan bedelkii markii hore loo socon jiray in ka badan 2 saacadood. maalinimo axad ah 31 Luulyo 2022 ayuu madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta si rasmi ah u daafuray mashruuc dhaxalgal u ah inta uu xilka hayay waana wadada caanka ah ee Nairobi Expressway kadib bilo ay ku guuleysteen tijaabinta wadadaas. madaxweynaha markuu xariga ka jaray wadada kadib wuxuu meesha ka jeediyay khudbadiisi waxaa ka mid ahay hadalladan. tan iyo markii aan furnay wadada si tijaabo ku meel gaar ah bishii April waxay qaadataa inta u dhaxaysa 15 ilaa 24 daqiiqo kasoo bilow deegaanka Mlolongo degmada Machakos ilaa Rironi ee gobolka Kiambu. awal hore safarkaas wuxuu qaadan lahay ugu yaraan 3 saacadood taasoo u dhiganta inuu qofku u duulo Addis Ababa uu dib ugu soo noqdo Nairobi haddana mar kale. madaxweynaha oo sii wata hadalkiisii waxa uu rajo ka muujiyay in wadada weyn iyo wadada hareeraheeda ay si weyn wax uga qaban doonto
riyooyinka ciriiriga ah ee wadooyinka Nairobi oo lagu qiyaasi jiray inay ku kacdo 5 bilyan oo shilinka Kenya sanadkiiba, iyadoo sidoo kale dadka uu uga dhumo waqtigoodii iyo shidaalkii baabuurta oo meesha kaga baabaa. Madaxweynaha ayaa intaa ku daray in wadada weyni ay sidoo kale damaanad qaadayso gurmadka wanaagsan dhammaan kuwa u baahan daryeelka muhiimka ah iyo dhaqdhaqaaqa dadka oo wanaagsan, sidoo kale gargaarka halbowlaha gaadiidka ee u adeega garoonka caalamiga ee Jomo Kenyatta. Mashruucan gaarka ah wuxuu xaqiijinayaa maqaamka Nairobi oo ah caasimadda gobolka iyo xarunta dareemayaasha dhaqaalaha, sidaas darteed xoojinta booska Kenya ee bariga iyo bartamaha Afrika ee xarun ganacsi iyo diblomaasiyadeed waa shay muhiim ah dalkani Kenya. daawadayaal, haddaan intaas uga gudubno hadalladaas yarka oo kooban ka soo qaadanay khudbaddii maalinkii uu xariga ka jaray madaxweyne Kenyatta wadada Nairobi Expressway, fikirkayga waxaan aaminsanahay wadadani inay noqotay wada game changer u noqotay regionkan East Africa, iyo welibana ay si fiican u dhistay bilicdii caasimadda Nairobi. sidaad ka aragtaanba magaalada wada ujeedaan wadooyin waaweyn quruxsan. qofkii maanta kasoo dega Kenyatta Airport uu aamini weynaya magaalada say u egtahay inay meeshan Afrika tahay, qofkii de markii ugu horeysay ay ku cusub tahay. marka adiga daawadayaal, sidaad u aragtaa wadadani? maxaad ka aaminsan tahay inay u qabatay dalka Kenya? ma isticmaashay wadadan? bal commentiga noogu dhaaf. daawade, haddaad videogan u aragtid inuu wax yar Allah ka dhiga aad ka faa'iidid, fadlan la share garay asxaabtaada, kuna xirnow channelka Mr. Mire. waa mahadsantihiin. haddana waan soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii, intaas ayuuna ku ogyahay. videoyaashan ku xiga oo ka hadlaya baabuurta sida gaariga Harrier oo kale, ama gaarigan kaloo Toyota Fieldaga ama Premio, ama videoyaasha kaloo deegaamadii aan tagnay oo sida beeraha qaadka ama trip aan ku tagnay caanageel iyo hilib aan doonanay, iyagana waa kuwan hadda meesha ka muuqdaan. waad sii daawan kartaa videogan magaalada Nyanyuki aan ku tagnay oo ka sheekaynaya dhulbaraha meesha kaga yaalo. waa video aad u xiiso badan isagana, waad sii daawan kartaan. maalin wanaagsan daawadayaal.